السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك وحرن جنال كمركة للسودة وهذا أدي هذا ومهتسنتهين مانتا وأربعة وأنا كوذا بشة تضبات الجولاي سنة كلا بدو كن إيه اللحية اللباتنكا موقال كان وحربا إنان مانتا إذا كلا وذاقو حبناها اللبدا حزبي الديمقراطية إيه وليبا ريبابليكانكا oo shalay guddi ka tirsan aqalka wakiilada ee Congress-ka ay hearing ama dhageysi la xiriira immigration-ka ay lahaayeen oo xubnuhu ay ku sigteen in gacanta ay isu la tagaan haddaba maxay yihiin waxyaabaha ka careysiiyay xubnaha dimuqraadiga ah mar uu hadal jeedinayay xubin ka tirsan xisbiga Republican-ka oo laga soo doorto gobolka New York arintaasi waan idila wadaagaya iyo buuqa halkaasi ka dhashay sidoo kalena waxaa soo badanaya xubnaha Democratic Socialist-ga kuwaasi oo doorashooyinka Israa'iilka ku soo baxaya kadib markii haweeney kale oo dhinaca Democratic-ga ee Socialist-ga ay ku soo baxday doorasho ka dhacday gobolka Colorado maalimadii shalay ahayd xubin ka jirtay Congress-ka ku dhawaad muddo 30 sanana ay kursiga ka tuurtay arintaasi waan idila wadaagaya sidoo kale balse marka hore soo dhawaada. Hello everyone, my name is Mustafa and I'm proud to introduce Hitch. Hitch is a Minnesota-based rideshare company focused on empowering drivers, supporting local communities, and transforming transportation. The future of community-focused transportation starts here. Thank you for your time. Join us on this journey. waalidiinta Soomaaliyeed ee jecel waxbarashada waxa la ogeysiinayaa looguna bishaareynayaa in maxadka waxbarashada ee Somali Islamic Online oo ku hayo barnaamij waxbarasho diimeed ah oo ka caawinaya in adiga iyo ilmahaaguba aad si fudud u barataan Qur'aanka iyo culumta shareecada maadooyinka dugsiga laga baranayna waxa ka mid ah Qur'aanka hikaada ahadiista ducooyinka tarbiyada asaasiga ah ee ilmaha tafsiir iyo qaybaha kale ee culumta shareecada qaabka waxbarashada dugsigaarina waa hab online ah oo waxbarashada aad ku qaadanaysan waxaanad kala xiriiri kartaa Gmail-ka iyo lambarada shaashada kaaga muuqda umrada sanadkan Salama Group waxay idin haysaa adeegyo cusub waxaana kamid ah adeegyadaas kow hoteello u dhow labada xaram ee Makka iyo Madiina loogana lugeyn karo xilliyada salaada labo gaadiid aad ku soo booqan doonto goobaha muqaddaska ah ee lagu xusayo taariikhda islaamka saddex baridda qaabka loo guto acmaasha umrada afar umreynta waalidka ama walaalka oo geeriyooday ama aan awoodin shan haddii aad tahay qof qaba baahi khaas ah xagga caafimaadka waxaan ka caawin doonaa gudashada acmaasha haddaba ku soo dhawow qiimo jaban oo ku raali gelin doona wixii faahfaahintaasi dheer fadlan waa WhatsApp number eber 965459284 mahadsanidin maalnimadii shalay ahayd Congress-ka waxaa dhici gaartay in xubnaha labada xisbi ay gacanta isu la tagaan oo ay isfeeraan haddaba arrintan sidee ku dhacday ayaan rabaa inaan idin la wadaago guddiga aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka guddi hoosaadka u qaabilsan dhinaca cadaaladda immigration-ka madax banaanida sidoo kalena ammaanka iyo dhinaca dhaqangelinta sharciyada ayaa waxay lahaayeen dhageysi la xiriira immigration-ka sidaan ognahay xisbiga aqlabiyadda iska leh oo markastaba hogaaminaya labada aqal ayaa waxa ay yeeshaan gudoomiyaasha gudiyada xisbiga aqlabiyadda yarna gudoomiye ku xigeenada ay leeyihiin marka gudigan waxa gudoomiye ka ahaa Tom McClintock nin la yiraahdo oo Republican ah oo California laga soo doorto marka waxa la dhageysanayay hooyo la yiraahdo Jessica Gorman oo gabadheeda oo la yiraahdo Sheridan Gorman oo 18 jir ah bishii March 19keedii nin soo galooti sharci la'aan ah oo Venezuela ka yimid uu ku dilay magaalada Chicago ee gobolka Illinois ninka dilayna waxa la yiraahdaa Jose Medina waa 25 jir sharci la'aan ah oo ka yimid wadanka Venezuela marka hooyadan Congress-ka ayaa u yeeray balse ay uga hor hadasho maadaama gabadheeda la dilay marka qof la dhageysanayo oo guddi ka tirsan Congress-ka waxa introduce kareeya oo guddiga soo hordhiga xubin ka tirsan deegaanka qofkaasi uu ka yimid marka xildhibaankan la yiraahdo Mark Lawler oo isagu Republican isla markaana deegaanka haweeneydan ka soo jeedo laga soo doorto ayaa haweeneydan introduce u sameynayay oo guddiga soo hordhigay sharciyo waxa jira marka guddiga u yaala xubinta introducing-ka sameynaya oo qofkan guddiga u soo bandhigaya in uu hadalkiisa ku koobo haweeneydan in uu sheego halka ay ka timid magaceeda iyo sidoo kale sababta ay halkan u joogto ma ahan hadal dheer in uu halkaasi ka jeediyo marka xildhibaanka la yiraahdo Mark Lawler hadal dheer ayuu halkaasi ka jeediyay taasina waxa ay ka careysiisay xubnaha dimuqraadiyiinta
ninkan soogalotiga sharci la'aanta ah oo isagu gabadhaasi yar oo 18 jirka oo jaamacad ka dhiganaysay Chicago dilay wadanka sharci la'aan ayuu ku soo galay bishii May 9keedii sanadkii 2023 ciidamada xuduudaha markay ay qabteen waa ay soo daayeen June 19keedii isla sanadkii 2023 dukaan ku yaala Chicago isagoo alaab ka xadaya ayaa la qabtay markaas kadibna waa la xiray haddana waa la sii daayay marka waxa ay leeyihiin Republicanku waxa ay ahayd ninkaasi in la masaafuriyo in uu wadanka sii joogo ma aysan ahayn. Back in May of 2023, over 3 years ago, Sheridan's murderer illegally entered the United States. Border Patrol caught him. They apprehended him. But then, because of the Biden administration's ludicrous open border policies, he was released into our country. A month later, he was arrested for shoplifting in Chicago. Under existing law and the law at the time, he should have been deported right then and there. Marka waa kan xildhibaan Mark Lawler oo marka hore haweenaydan iyo sababta halka ay u joogto iyo gabadheeda la dilay ka sheekaynaya oo soo bandhigaya. I'm here today to introduce Jessica Gorman. Jessica should not be here today. She should not be testifying before Congress. She should be back in New York with her daughters, Madeline and Sheridan, enjoying a quiet Tuesday afternoon in the summer. But unfortunately, Jessica is here with us today. And she's here because just a few short months ago, her beautiful daughter, Sheridan, was shot and killed in Chicago by an illegal immigrant. I cannot say it loud enough or clear enough, but this nation and this Congress owes you an apology. We are sorry to you, to Tom, and to Madeline. I didn't know Sheridan personally, and that's a tragedy. markaasi kadib xildhibaankan hadalkiisii ayuu dheereeyay introduction ayaa looga baahnaa in haweeneydan sababta halkan ay u joogto uu sheego kadibna iyada microphone-ka lagu wareejiyo oo ay hadasho marka hadal dheer ayuu sii galay gudoomiye ku-xigeenka guddiga marka waa Pramila Jayapal oo dimuqraadi ah oo Washington State laga soo doorto sidaas darteed waa ay ka soo dhax gashay isagoo hadlaya waxa ayna tiri gudoomiye ninkan ma jeedinayo introduction ma sameynaya statement qoraal dheer ayuu akhrinayaa arintaasina kuma jirto sharciyada u yaala guddiga marka isagii waa uu hadlay Mark Lawler ayaa isaguna hadlay waxa uu yiri waxaad ku guuldareysateen shaqadiina inaad qabataan sidaas darteed ayaa Pramila Jayapal waxay leedahay waxaan ka codsanaynaa gudoonka in xildhibaankan hadlaya sharciyada guddiga uusan ku xadgudbin maxaa yeelay guddiga iyo xubnaha minority-ga hoggaanka guddiga iyo xubnaha minority-ga heshiis ayaa u yaala markaas kadib xildhibaan Mark Lawler oo hadalka watay ayaa waxa uu leeyahay waxa aadan doonaynin inaad maqashaan faahfaahinta sababta ay gabadhan u dhimatay maxaa yeelay arintaasi waa muhiim marka bal isweydaarsigaasi hadalkaasi labada dhinac dhaxmaraya walow uu sii kulaan doono qaybaha dambe aan idinku maqashin doono waa tan mar kale Mark Lawler iyo Pramila Jayapal iyo gudoonka guddiga sida ay arintaasi ay uga hadlaan Sanctuary policies Mr. Chairman, are the reason. Point of order. why- This is a Gentlemen will statement, suspend. not an introduction. Lady's point is well taken. Gentlemen, please confine his remarks to the introduction. Thank you. By our federal laws. Point You of all order, should be this is ashamed not of an yourselves. introduction, it's a speech. You should be ashamed of yourselves. Mr. of Chairman, order. disgraceful. Mr. Chairman, Yes, we for had, ruling on the Mother point of is order. here. Chairman, Precisely because you have failed to do your job. Yes, Mr. for You ruling wonder Chairman. why we had 4 Everybody four settle down. hearings? It's because you don't understand gentlemen the will consequence of suspend. sanctuary Mr. policy. Chairman, Gentlemen unfortunately, will we won't suspend. give our approval for people to introduce their constituents if people don't stick to the rules. So I appreciate the chairman's insistence Yeah. that we stick to the rules and that you have the opportunity to introduce your constituent, which Right, I and think you have introducing done. my So constituent thank you very is- much, Mr. Lawler and Mr. is Chairman. sharing the please have details committee of her death. be in You may not order. want to hear the details. It may be an inconvenience to Mr. you, Chairman. but these details matter. The gentleman will suspend. We have an agreement with the minority that the introductions will be introductory only. So if I could just ask for the gentleman to make that introduction and conclude. Sure. markaasi kadib doodu waa ay sii kululaato waa meesha lagu siganayo xubnaha in ay gacanta ay isula tagaan
xildhibaan Mark Lawler oo hadalkiisii la siiyey in uu sii wato ayaa waxa uu sheegay in qaar ka mid ah xubnaha dimuqraadiyiinta ee meesha fadhiya aysan maqlaynin runta in ay maqlaan maxaa yeelay sida ay uga caraysan yihiin Renee Good iyo waliba Alex Brady waa labadii muwaadin ee Mareykanka ah ee magaalada Minneapolis ciidamada ICE ay ku dileen 7 January ee sanadkan iyo 24 January markii howlgallada ICE ay ka wadeen waxa uu yiri sida ay uga caraysan yihiin waa inay u muujiyaan carada Laken Riley oo iyadoo gabar jaamacad ka dhiganaysay Georgia oo nin Venezuela ka yimid oo sharcilaana February sanadkii 2024 uu dilay iyo waliba gabadhan kale oo la yiraahdo Sheridan Gorman oo bishii March 19keedii soo galooti karo sharcilaana oo Venezuela ka yimid uu dilay markii hadalkaasi uu sheegay marka ayaa isla markiiba waxaa soo booday xildhibaan Jamie Raskin oo Maryland laga soo doorto oo dimuqraadiya markaas wuxuu yiri arrintaasi waan dareemaynaa caradaasi aad sheegaysid marka wuxuu yiri adigu bal hal eray waxa aad ka tiraahdaa Renee Good iyo sidoo kalena Alex Brady marka Mark Lawler waa uu soo boodo wuxuu yiri I did arrintaasi waan sameeyay maxaa yeelay maqaal dheer ayaan ba New York Post aan ku qoray markaas kadib ayaa waxa uu sheegay Jamie Raskin waxa uu yiri ma fahansanid sharciyada guddigan isla markaana dastuurka sidoo kale wadankeena ma fahansanid sidaas darteed ayaa markii dambe hadana Pramila Jayapal iyo guddoonka guddigu ay soo kala dhaxgaleen waxana Pramila Jayapal ay tiri ma ogolaanayno heshiiskii u dhaxeeyay aqlabiyadda ama hoggaanka guddiga iyo waliba xubnaha aqlabiyadda yar leh in lagu xadgudbo guddoonka guddigana waxay ku eedeysay inuusan xakameyn karin xubnaha xisbigiisa ee guddiga ku jira sidaas darteed ayaa marka doodii gabi ahaanba ay kululaatay isla markaana ay isku bedeshay mid qaylo ah iyo in faraha la isku taagtaago bal qaybtan dambana ila daawada sida ay wax u dhaceen. So while some of my colleagues may not want to hear the truth, the same outrage you feel about Renee Good and Alex Preddy, you should feel about Sheridan Gorman and Laken Riley and every Angel family in this country. I do feel that outrage. You do not. Because if you did, you would not support sanctuary jurisdiction. Do you feel the outrage about Alex Preddy and Renee Good? You should be ashamed. You don't belong in this committee. You should get the hell out of here. You don't understand the rules of the committee. You don't understand the Constitution. You're a disgrace. Mr. Raskin, you're an absolute disgrace supporting sanctuary policies. Say one word about Get rid of sanctuary Alex Preddy. I did. I wrote a whole New York Times op-ed about it. You should be absolutely ashamed of yourself for not opposing sanctuary policies that resulted in their daughter's death. The committee will be in order. Mr. Chairman, I just want to say we will not allow, thanks to Mr. Lawler's outrageous outburst, we will not allow this to happen again. This was an agreement between the chair and the ranking member, and unfortunately, you're not able to control your members, so it is time for us to proceed. Your opening statement was outrageous. Get off of it. Let's try to conduct ourselves in a civil manner. Speak that to your member, Mr. Chairman. ugu dambeyntii waxaa soo badanaya xubnaha xisbiga dimuqraadiga ah ee socialistiga ah kuwaasi oo doorashooyinkii ugu dambeeyay ee isla reebka ku soo baxaya toddobaadkii hore New York waxaan ognahay 3 xubnood oo maayarka magaalada New York Zoran Mamdani uu taageeray inay soo baxeen hadda marka 8 xubnood ayay gaarayaan xubnaha Democratic Socialistiga ee soo baxay shalay Colorado doorashooyin isla reeba ayaa ka dhacay haweeneyda la yiraahdo Diana Digette oo ilaa sanadkii 1997 degmada koobaad ee gobolka Colorado laga soo dooranayay ayaa doorashooyinka isla reebka shalay waxa uga adkaaday haweeney la yiraahdo Milad Kiros oo iyadana Democratic Socialistiga ku jirta marka taasi waxay ka dhigaysaa in 8 xubnood oo Democratic Socialistiga doorashooyinkii ugu dambeeyay isla reebka ay soo baxeen waxaana ku jira nin muslim ah oo wadanka Masar asal ahaan ka soo jeedo oo Dr. Adam Hisham Hamawi la yiraahdo isla markaana degmada 12aad ee New Jersey ayuu ku soo baxay doorashooyinkii isla reebka doorashooyinkii dhacay bishii June ee la soo dhaafay horaanteedii dhinaca sidoo kalena gudoomiyaha gobolka ayaa Colorado ayaa tartan uu ka jiray Jared Polis oo 8 sano ee la soo dhaafay hogaaminaya ayaa xilka ka dagaya marka doorashooyinkii isla reebka shalay waxa ku soo baxay Phil Weiser oo xeeralyaha guud ee gobolkaas waxaana uu ka guuleystay Senator Michael Bennet oo la tartamayay marka Phil Weiser ayaa xubin Republicana la tartami doona doorashooyinka November marka la gaaro aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan markale kulmi doono waa saaxiibkeen cilmi waro idin la sida iyo nabadgelyo